السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما خيرت وحنا جنالكين أحمد دارق إني كسر دوادي مقال عصب. قدس ومقالة قديمة، وأنا مقالة سدحاد وبركة سندولك. قدس ومقالة الله سبحانه وتعالى وكدل من نبي محمد صلى الله عليه وسلم. قدس ومقالة النبي بدنا يكدوينهين، وأنا مقالة النبي موسى كو أمر يهودا إن يجلان أي فرتان بلس أي كديدين. فرشدي ugu horeysay Qudus ee furteen muslimiinta waxa hogaaminayay ciidanka furtay Abu Ubaydah Amr ibn Jarrah iyo Amr ibn Aas. Qudus furashadeedii kumuusan daadan dhiig, balse waxa la go'doomiyay 4 bilood magaalada. Waxa xilligaas xukumayay Qudus boqortooyadii Roomanka, balse wax way u qaban kari weeday maxaa yeelay ciidankoodii ku badnaa waxa lagu soo laayay dagaalkii ugu dambeeyay ee lagu magacaabi jiray Yarmouk ee lagu qaaday Roomanka inta aan la furan Qudus. sidoo kalena waxa meeshaas lagu soo dilay boqorkii Roomanka walaalkiis. dadkii ku noolaa Qudus waxa ay isdiibeen 4 bilood kadib go'doomintii la saaray. waxa lagu yaqaanay dawladihii hore in madaxweynaha ama qofka dad maamulaya uusan ka bixin magaaladiisa, balse hogaamiyayaashii Qudus waxay u sheegeen Abu Ubaydah ibn Jarrah inaysan siin doonin furayaasha magaalada cidaan ahayn khaliifkii muslimiinta Umar ibn Khattab. عمر ibn Khattab waxa loo diyaarshay casuumad heer sareysa, waxaana meesha loogu yeeray hogaamiyaashii Qudus dhamaantood. waxa dhulka lagu gulay Umar karbad gaduudan kaasoo gaarayay 2 kiiloomitir. sidoo kale meesha waxa lagu ballamiyay labadii taliye ee ciidankii muslimiinta Abu Ubaydah Amr ibn Jarrah iyo Amr ibn Aas. waxaa jirtay jumlad uu Umar ibn Khattab dhahay oo ilaa hadda laga isticmaalo United Nationska, taasoo ah sidee u adoonsataa qof ku dhashay xornimo. Umar ibn Khattab waxa uu bilaabay inuu socdaalo dhinacaas Qudus, waxaana la socday hal shaqaale, sidoo kalena waxa ay wateen hal neef oo geel. Umar waxa uu heshiis kula galay shaqaalihii in safarka haafkiisa uu Umar ku fadhiisan doono neefka, shaqaalahan uu ku agi doono wadada, haafka kalena uu shaqaaluhu ku fadhin doono neefka, Umarna uu ku agi doono neefka wadada. labadoodii waxa ay ku soo hagaageen magaaladii Qudus xilli uu Umar hogaaminayay neefkii geela. sidoo kale waxa uu ku soo dhacay deeqo inta uu soo socday Umar ibn Khattab. shaqaalihii ayaa yiri amiirkii muuminiintu iida anigu aan hago neefka maadaama aynu u dhownaay magaaladii. Umar ayaa ugu jawaabay heshiis waa heshiis. Umar ayaa soo galay magaaladii, waxaana arkay Abu Ubaydah ibn Jarrah, waxaana u soo cararay xaggaasi Umar ibn Khattab. Abu Ubaydah ayaa ku yiri Umar, waadna ceebeysay, dadka si fiican ayay u soo labisteen, waxa la rabay inaad tustid inaad tahay hogaamiye awood leh. Umar ayaa ugu jawaabay jumladiisii caanka ahayd, waxaan nahay dad uu Alle ku ciiseeyay islaamka, haddii aynu ka dayno ciisada ciidan isaga ahayn wuuna dullayn. Umar waxa uu ka gadoomay hogaamiyayaashii furayaashii magaalada. sidoo kale baadarigii ugu weynaa magaalada ayaa waxa uu u kaceeyay Umar ibn Khattab xaggaas kaniisadda xilligan lagu magacaabo kaniisadda dhalashada. xilli ay ku jireen kaniisadii ayaa waxa yiri aadaankii salaada. baadarigii ayaa u sheegay Umar ibn Khattab in uu ku tukado kaniisadda dhexdeeda. Umar ayaa ugu jawaabay, may waxaan ka cabsanayaa in jiilalka soo socda ay yimaadaan oo ay sheegtaan inay meeshani tahay masaajid, maxaa yeelay aniga ayaa ku tukaday. Umar waxa uu ka degay jaranjaradii, waa uuna ka fogaaday xoogaa, waxuuna ku tukaday meel meesha u dhow. 400 sano kadib meeshii waxa laga dhisay masjid loogu magac daray Masjid Umar ibn Khattab. Umar waxa uu ogaa sida ay u shaqeyso taariikhda, sidaas ayuuna Umar kula wareegay xukuumaddii magaalada Qudus. Umar ibn Khattab waxa uu ogolaaday in dadkii muslimiinta aan ahayn ee ku noolaa magaaladii Qudus ay isku xukumaan sharciyadooda, sidoo kalena ay haystaan diimahooda. waxayna ahayd xilli cadaalad xilligiisii iyo dhammaan xilliyadii khulafada radiyallahu canhum. waxaan filayaa inaan waxun kaga faa'iideeyo mawduucayni maantay. intaan ku kulmi doono mawduuca lamida waxaa idinkaga tegay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.